wuxuu riday khilaafadii Islaamka isagoo muujisanayo islaamnimo. Yuhuudigii Muslimiinta ka riday dowladooda sababtiisana ay maanta ugu dhiban yihiin meel walba oo ka mid ah adduunka. Magaciisu waa Mustafa Kemal Atatürk, ama loo yaqaano aabaha Turkiya. Wuxuu ku dhashay meel lagu magacaabo Salonik oo ahayd deegaan Yuhuudeed. Asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa Yuhuudiga Doonama, iyadoo la fiirinayo ficiladiisa xunxun ee qaabka daran iyo dagaalkii uu la galay Islaamka. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa hogaamiyayaasha ciidanka Cusmaaniyiinta ee Shaam. Mar walba ciidanka wuxuu u horseedi jiray jab iyo dhabarjeedin. Cadowga Islaamkana halkaas waxay ka arkeen baadi ay raadinayeen. Ninkana waa kii lagu jebin lahaa ciidanka Muslimiinta maadaama uu sheeganayo inuu ka mid yahay iyaga. Cadowgii waxay go'aansadeen inay awoodiisa xoojiyaan. Heer ay isaga u wakiisheen shaqadii uga hartay dowladda Cusmaaniyiinta. Mustafa Kemal Atatürk wuxuu shaaciyay shir uu ku sheegay inuu ku difaacayo dalka. Isaga ayaan isku magacaabay madaxweynaha shirka. Kadib wuxuu u guuray Ankara, wuxuu ka soo horjeestay xukuumaddii Cusmaaniyiinta. Arrinkaasna gaaladii duulaanka ahayd wuxuu ka caawiyay inay shuruudo badan ku xiraan khilaafada Islaamka. Shuruudahaasna waxaa ka mid ahaa in Istanbul loo sameeyo maamul, wadamada Carabta ah in laga jaro maamulka Cusmaaniyiinta, in xorriyad la siiyo Kurdistaan iyo Armenia, iyo shuruudo kale oo xunxun sida in ciidanka Cusmaaniyiinta la hoosgeeyo isbahaysigaas gaalada ah. Xilligaasna Atatürk wuxuu shaaciyay maamul cusub inuu ka samaystay Ankara. Wuxuu diiday shuruudihii ay keeneen isbahaysigaas, isagoo markaan matalayo geesinimo. Markaasna waxaa la diyaariyey qorshe Muslimiinta loogu dhisayo guulo mala awaal ah. Guulahaasna waxaa ugu caansan dagaalkii Saqariya. Markaasna Gariiga wuxuu isaga baxay dhulkii Anadol. Talyaanigana wuxuu ka baxay Andakiya. Ruushkana wuxuu ku mashquulsanaa kacdoonkii Shuuciyadda. Atatürk ayaa kula heshiiyey inuu siin doono magaalada Badom ee Badda Madow si ay u joojiyaan dagaalka u dhexeeyo. Sanadkii 1340 waxaa la doortay khaliifkii ugu dambeeyay ee dowladda Cusmaaniyiinta, Cabdilmajiidka labaad. 3 maalin kadib markii uu qabtay maamulka, waxaa dhacay shirkii Lausanne. Shirkaasna waxaa ka qayb galay dad matalaya xukuumadda Cusmaaniyiinta. Markaasna Ingiriisku wuxuu keensaday shuruudo 4 ah oo ku aqoonsanayo xornimada Turkiya, waana kuwan shuruudaha. 1. In gebi ahaanba laga takhaluso khilaafada. 2. In la jaro wax walba oo la xiriiro Islaamka. 3. In waddanka laga saaro dadkii garabka u ahaa khilaafada Islaamka. 4. In la sameeyo dastuur gacan ku samays ah, la iskana tuuro dastuurkii hore ee khilaafada Islaamka. Dadkii waxay sugayeen hadalka khaliifka, balse Atatürk oo awood yeeshay ayaa go'aansaday inuu iska wareejiyo cid walba oo hortaagan. Sanadkii 1341 wuxuu shaaciyay in la tuuray khilaafadii Islaamka ahayd. Sidoo kale wuxuu shaaciyay jamhuuriyadda cusub ee Turkiya. Wuxuu meesha ka saaray wax walba oo diin la xiriiro. Ciidankiisa ayuu ku fasaxay shacabka, iyagoo dumarkana ka siibaya xijaabadooda. Adinkana wuxuu ka dhigay af Turki. Luqadii Turkiga ee xurufteedu ahayd Carabiga wuxuu ka dhigay xuruf Laatiini ah. Wuxuu sameeyey ficillo aysan ku dhiiran karin xitaa gaalada. Qaabkaas murugta iyo xanuunka badan ayay ku soo dhammaatay khilaafadii Islaamka ahayd ee soo jirtay ilaa xilligii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ilaa waqtigan la ridayo. Ilaa iyo haddana Muslimiinta waxay ku jiraan dhib iyo imtixaan, iyadoo dowlad walba oo awood leh ay awooddeeda ku tijaabinayso. Rabbiga naxariista badanna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo soo celiyo khilaafadaas qiimaha badan.